دل كاس محوها دل أو حبة فكت ما هذا حبة داس ما جا كسة دي كبر كم احتمال ليه يا جيست نكاس قبرن قرق لأدم كاس ده هاي دي وانتو قد قرق وقبت وحويري إيجاتك إنه قدرة isqabqabsi bilowgiisa kaltanka shaqada cida iskale waardiyaha kuwaad iyo qofka xiga ayaa ku soo dhamaaday ugu dambeyn in xilliga qadada eedeysana Niza Xasan Cumar Xasan laba baalootoo laga riday qoryaakay 47 ah oo madaxa uga dhufto marxuum XW Nisa Cabdullaahi Cabduqaadir Cabdi Nuur eedeysanaha ayaana baxsad ahaa ilaa laga soo qabtay 29kii bishii 12aad 2024 eedeysanaha maalinta taariikhdu markay ahayd 18kii oo habeenkii ka horeysay wuxuu ku hoyday ama shaqada muusan lahayn wuxuu ku hoyday gurigiisa wuxuu yimid goobtii wuxuu sida sharciga ama ciidanka ay u shaqeeyaan waxa jirta kaltan loo shaqeeyo waxaana shaqada ku qornay marxuumka oo markaas goobta ku jiray oo ah biramada sida loo yaqaano shaqadii kula qabsaday wuxuu yiri anaa shaqeynayo goobtii ku murmeen goobtii markay ku murmeen kadib qoryaha la isku qabtay waliba qoriga waxa dadka ku qabanayo badana marqaatiyaasha sheegi doono eedeysanaha ayaa wuxuu ku qabanaa marxuumka sidii loo kala celinayaa marxuumka wuxuu damacsanaa maadaama shaqada uu ku jiro shaqadana uusan lahaay inuu shaqadiisa dhameystirto oo israacsado ninkan wuxuu rabay shaqada inuu hormarsado marka kadib uu iska tago oo birama iyo sokonti tarsi loo kala galo shaqadii markii la isku qabsaday marxuumka ayaa waxa la yiri aday ka roonow iska tag meeshii barta control ninkaana shaqada sidaa ku galo shaqadii la galay shaqadii markii la galay kadib ayaa waxa dhacday waqti qadada la gaaray ayaa raashin loo keenay qada ah marxuumka iyo eedeysanaha ayaa hadda mar labaad waxay ku kulmeen meeshii goobtii cuntada lagu cunayay askartii booliska iyo nabad sugidda isla wada joogto oo jagboontigaas cali ogaas kana tirsan degmada Dharkeenley sidoo goobtooda ku shaqan qadada qadeynayaan ayaa ninkan waa qofka ugu horeeyay qadada ka kacay kabihii marxuumka ayuu wuxuu ku korfalxalanaya markuu ku korfalxashay maxaad iga farxalanaysaa uu leeyahay marxuumka iyo adaas kan karlaya markaas laba xabadood wiilkii marxuumka oo fadhiyo qorigiisa oo meesha u saaran qoriyihii kale meesha ay yaalaan qofka kaliya oo markaa qoriga la taagnaay oo watay wuxuu ahaa eedeysanahan maxkamadda hor taagan sidii ayuu xabado madaxa ugu dhuftay waliba xataa korna uma ridin hoos uma ridin madaxa xabada kaga dhacay waa soo bandhigi doonaa maskaxda banaanka timid qoriyihii kale wuxuu ku qabtay xataa maadaama ay wada qoriyihii hal meel wada yaalaan marxuumka ag yaalaan dadka qaarkood ayuu handiday sidoo ku baxsaday waxaa la soo qabtay taariikhdu markay ahayd 29kii bishii 12aad 2024 oo laga soo qabtay taraboonka isagoo ku dhuumaaleysanayo waana kan eedeysana Xasan oo banaanka ka taagan inuu galay falka dilka ah ee halkan ba loo soo istaajiyay eedaas aniga ma gelin cawa ma gelin maalin ma gelin hamiin ma gelin ninkaasna walaalkay oo ahay Allah marka horta Allah u naxariisto anigana ma dilin cawaana dilin hamiinaana dilin maalinaana dilin nin aan isku ciidanna u ahay nin aan shaatiga isla wadana u ahay mana dilin cawana ma dilin maalina ma dilin hamiinna ma dilin goob joogayaal booliiska iyo nabad sugidda qaranka ka kala tirsan sidoo kalena ahaa saaxiibo shaqo wadaaga ay ahaayeen marxuum ka dhintay iyo eedeysanaha ayaa maxkamadda ka hor qiray wixii ay indhahooda ku arkeen qofka toogashada geystay iyo weydiimo kale oo garsoorka hor dhigay marka waxa uu soo diyaar garoobay inuu shaqada fuulo 12ka subaxii aniga marka ilaa habeenkii uu ila joogay 12kii uu shaqadii fuulo anigana waa saxdo hurda ay qabato marka fasaxna waa ahay laakiin waxaan u joogay heeganaan u joogay aniga waajibaadkii qaranka laakiin waa dhameystay aniga markaan dhameystay 12kii uu subaxii uu shaqada fuulay waxaan soo kacay muddo adiga 2 saac waxaan ku soo kacay iyadoo laamiga iyo qeyle ka yeeri waa u imaaday Xasan qabiran iyo ninka dhintay oo Cabdullaahi Cabduqaadir Cabdiye labadooda ayuu isu dhaaranaya oo laamigii ku marmahan u imaado markaan u imaaday Xasan waxa uu dhahay walaalow ninkaan iga qabo waxa ay dhahaa Xasan qabiran aniga ugu dhaha ninkaan oo dadku xigaa ninkaan iga qabo
waxaan ku dhahay walaalow xigta meeshan ma taal laakiin daliiska qarankan walaalo ku nahay maxaa dhacay maxaase macnaa isku haysateen shaqada anaa iskala how shaqada waxaan dhahay walaalow ninkan waa kaa hor fuulay 12 subaxii fuulay shaqada 6 saac uu ka dagaa 6 saac markuu ka dagaana fuul adigu shaqada markaas ma fuulaayo dhahay waxaan dhahaa qabiran الله نحرسته نك دمتو عبد الله عبد القادر وحنا ولالو نك هذا وجهده كل حول وان وجهده ادو هذا ورقه يلي شغلان كدق halkaas kolba fariiso waa ka tagaa aniga way hay intaas markuu dhaay aniga waa ilaa habeenkii aan soo jeeday waa iska seexday markaan seexday waxaan soo kacay adigoo muddo 4 saac iyo daqiiqadaha aqada la soo kacshay aqada la soo kaciyay qadadii waxa meesha ku wada cunay ragga booliska ah iyo nabad sugidda hal saxan ayaa wax ku wada cunay hal goob ahaan ku wada cunay ninkii ugu horeeyo saxanka ka istaagan aniga waxaan aaday tobadan aaday tobada markaan anoo farxashay wajigana dhaqday laba baalooto baasa dhac labadii baalooto markay dhacday aniga macnaha waxaan isir goorba wax badal iskridaa waxaa imaaday qaxsan qabiran oo gacanta beexda qora ku haysta oo ordah ay imaaday meel xagga kale soo istaagay kaska saacto soo istaagay ma ku uriyo walaalkaaga cish halkaas yaala ka xabxaabi war maxaa dhacaan ku dhahay xasanow waan iga dhaqaaqay meeshii aan tagay ninka Cabdulqaadir ahay oo meeshii yaala u tagay oo wajiga xabad uga taal oo markaasna uu naftu ugu dambeeyay aan u tagay war ninka qabtaan anagoo safakan ayaan la iyo aniga ayaa ka daba oranay xasan qabiran waa ardaynay laba baalooto hodaan nagu soo riday anagoo xabadan ku ridno kor ugu ridnay waa qaba weyna waa naga dahsooma markaas ka bacda waa ka soo harnay mudana gudoomiye aniga sidii aan wax u ogaay oo ilaahay loo yahay aniga intaas ay ahayd anigu dhacdadii hore oo meesha ka dhacay goobtaas ma joogin laakiin waxaan joogay goobta markuu marxuumka uu ku dhimanayo goobtaas heeganka aan taagnay marka aniga iyo marxuumka dhimanayo iyo askariga oo ninka marxuumka dilayo iyo afar oo nabasuuda iyo 3 booliis aan ku joogno meesha goobtii waxaa noola keenay afarta nabasuuda iyo 3 booliiska waxaa noola keenay qada ayaa noola keenay oo marka meesha ku qadaheelay oo dhaxda noola soo dhigay marxuumka dhimanayo iyo aniga iyo askari kale booliis oo aniga xukumo qaybta sadaqadan ku jirnay askariga sanad dhulka geystay iyo 3 kalena waxay fadhiyeen barta ee sadaqada dawladda u dhowdah barta ka soo jeedeen cuntaan wada cunaynay cuntadii dhamaadkeeda markay dhamaan rabto waxaa baxay askari faayo anaga dhaqaaqay askari faayo askari noqsidaha askari faayo la dhaqaaqay farxalo tubada u aaday markuu farxalo tubada u aaday askariga oo sanad dhibka geystay asagana baashi watar uu soo qabsaday oo biyo ugu jiray farxalkii ku farxalinay watar oo ku farxaday kabta marxuumku marka uu ku dhacay biyaha oo ku shubay marxuumka marka wuxuu yiri kabta biyaha iga shubin eedo biliga kabta biyaha iga daa inuu dana leedahay sanad dhahay dana leedahay danta leedahay gaar macnaha anigi waxaan dhahay warsaas dhib ma wala adiga ka biyo u shubto dhib ma leeyahay raalo wax ka badan ma leeyahay raalo ka badan ma dhimi kartid adiguna waa qaldantahay joogtay aan dhihi rabay sanaha waxa macnaha gadaal u jeesay intuu iska dhigay oo soo jeesto 2 baalood uu soo furay waxay ku dhacday marxuumkii basoo meeshii yaalo halka saabada ugu dhacday meeshana oo waliba hataa waa hayaa ii sheeg cadeemihii halkaas saxabada inta ugu dhacday ee meelaan ka baxday anigii askariga booliiska oo ninka sanduuqada kula jirnay
naf ala awdeed intaan soo booday aasi agtiis ku soo dhacay qorig la aad markaas dhahay dib intuu uga dago qorig u qabtay wuxuu yiri iga tag hadaa iga tagin waa kugu dara aniga sargaalka booliiska meesha joogaan ahay markii qorig u qabtay awood aan xataa qorina meesha qoriyay dhan wuxuu wada yaalaa ninka marxuumka dhimanayo ag yaalaa qoriyaha dhan marxuumka dhimanayo ag yaalaa si kaliya soo qor ka wata qorigana saan u haysta xataa isma dheheen ninkaan dhib geysanayo ama ninkaan si fal xumaan ii geysanayo marna isma dheheen waa dhaqaaqay ninkaan marka dambe markuu qoriga u qabtay dhaqaaq uu sameeyo dib gurashaha wuxuu yiri hadaa ii soo dhawaato adeegna kugu daraa waxaan ogaaday inuu ninkaan nin dilay haddana annagana fala aniga waxaan ku helin hakistan gal marka nafteeda hakisu galay waa dhaqaaqay askariga tubada aaday waa og yahay askariga tubada aaday intuu hagiisa u sii aaday oo askarigii qoriga ku qabtay qorigina annaga qorigina ninka dhimanaya ku jiifo qorkiisana waxay saaran tahay alwaaxa oo sandaqad yarta camera ku tusaa saas u saaran tahay ninkan qoriga ku qabtay ninkii oo tubada biyo ku jiray istaag walaalka iga ceshi maanta ku weeno asoo dhiiraba gabar hadda oo ayadana xaamilaha hadda xanuunsan oo hadda kiiska nagu jirto untada noo kariso ayaa dhahday wariyaan nina hadda dishay ninka kala hadili waa soo dhaqaaqay barta geedka quraca u dhow markuu sii dhow yahay ayaa markaas jaanis helnay markaas aan dhahay waraa askarifaayo warniyo ninka qabtaan dhahaniyo yaa nolol ugu sidan waana sii cararay nimanka waa ka daba baxeen saraakiishii na xukuntay ayaan WhatsApp-ka ninkan suurka ka marxuumka dhintay ka qaaday ayaan u gudbiyay inuu askari nisaa uu dilay askari nisaa kala goobtii waa la imaaday nimanka soo sii cirdeysanaayeen oo goobtii intay buriyeen ee ka soo hareen ayaa sidii marxuumka lagu qaaday marka waxaan joogay bartaas baastadii la cunayay baastadiisa loo cunayay baaburaa soo istaagay baaburkan u istaagay askari kalena waa kacay dhanka tubada u tagay farxal u aaday ana baawartii baaras u aaday baawarkii anoo ku dhex jiro waxaa maqla xabadaas daba dhaceen meeshan baasada ku cunayna saxan ka yaal oo ciidanka fadhiyo maqla xabadaas daba dhaca saasaan soo jeesaday ciidan Italiya oo kala dhacayeen oo saxabkay oo qoro saas u haysto oo maankii oo furan oo la askari ka la wareegsay oo maada walaalka iga cashama ku dhaha maanta dhan maada ku bariya asoo leeyahay afkiis intaas ugu dambeysay dilkaas dil ka saamu ahaa mise dil kama ah waa kas wax kam la ma jiro dilkaas muxuu ahaa dil oo xabad fakatmaya xabadaas maya kasay hadii kibir kama ahti mal leeyo yaa geest ninkaas qabiran ilaahay ka cabsan qofka ma cabsan xabadii hatta ninkan uu soo riday oo ninkan marxuumka ku dhacay ilaahay dartiisa uu dhacay mooy anaga hatta horta lamid ahayn oo way la sadaqada salafan ila xabada soo dhacay anaga hatta dhimashada ku jirto baraha kiis oo natiijo baarista galkan jeediyay ayaa garsoorka u sheegay in dilkan uu ahaa mid kas ah eedeysanaana uu galay dembiga loo haysto xeer ilaaliye gaashaala dhexe Axmed Iimaan ayaa garsoorka ka codsaday in dil toogashaha lagu xukumo eedeysane Xasan Cumar Xasan waxaa dil bareer u geystay oo madaxa xabada ka dhuftay laba xabadood marxuumka sababtan ay ahayd muran marka hore ka dhacay sidoo sheegay marqaatiga Faid Daahir Xaashi oo yiri subaxii waxay ku murmeen kaltanka shaqada oo ah biramo iyo sukunta iyo teerso sababtoo ah eedeysanaha wuxuu ka yimid dib habeenkaas gurigiisa ku hooyday wuxuu kula qabsaday shaqadii goobtii marxuumka oo shaqadiisa ku jiro ayuu wuxuu yiri shaqada anaa iska leh iyo adiga ma liid anaa leh ku jiro maadaama saaka hore aan galay sidaas ku murmeen waa la kala dhax galay marxuumka ayaa waxa leeyahay ka roono maadaama ninkan dagaal iyo ujeed damacsan yahay wuxuu ku aaday goobtii nasashiinada ama ay uu aaday marxuumka kadib ayaa waxa dhacday in waqti qadada la gaaray ee haddana mar labaad meesha isku arkeen markii ay isku arkeen kadib la qadeeyay qadadii kadib wuxuu sameeyay eedeysanaha inuu ku farxasho marxuumka kaba uu lahay markuu ku farxashay ayuu dhibanihii ama marxuumka uu yiri maxaad iga farxan leh aflagaado iyo wuxuu isku daray xabadii
sida ay sheegayeen markhaatiyaashii xabad ayuu labada madaxa kaga dhuftay maskaxdii dhulka ku daadatay goobtii ayuu ka baxsaday wax gargaar asxaanimo ama uu sameeyay ma jiraan kadib xataa wuxuu sameeyay inuu ciidankii qori ku qabto oo goobtii ka baxsado waxaa la soo qabtay 29 bishii December oo maalmo kadib isagoo ku dhawaalaysanaya magaalada Muqdisho goobtaas ayaa lagu soo qabtay baaris ayaa la sameeyay wuxuu cadeynta uu ka sheegay ama marka hore uu qarsanaay inuu dilkan geystay waxaan keenay markhaatiyaal todobada markhaati waxay sheegayeen inay kascad dilkan uu yahay sanadna uu yahay dilka ninka geystay qorin uu AK47 uu isticmaalay goobtan uu ka baxsaday si waafaqsan 184 oo arkayay sheegay kitaab jaamac la marsiiyay kuna dhaartay inuu dambigaas ninkan geystay sababta dilka uu geystana ay tahay kaltanka shaqada marka hore lagu marmay colaadaas kadibna haddana uu kabihii ku farxashay xabadda uu ku dilay oo kaliya wuxuu dilay askari kale oo saaxiibkiis oo carajiif la ahay goobta iskala shaqeynayeen si kasna u dilay maadaama kiis walba wixii walba lagu dhaqaajin karo ama wax walba maxkamadda aan hor keeni kara aan keenay maadaama aan markhaatiyaal keenay maadaama aan marag muujin aan keenay sawirkii dhimashada iyo warqadda isbitaalka maadaama aan keenay qorigii dambiga lagu geystay dhammaan ay wada cadeeyeen oo ka wada cadahay dambi inuu dhacay maxkamadda waxaan ka codsanaa in loogu qaado qodobada kala ah ama aayadaha aan ku soo eedeynay iyo qodobada sheegay dilka kaska inuu yahay dilka in dil toogasho ah oo ah marxuum Cabdullaahi Cabduqaadir Cabdi Nuur maxkamadda maasanta qareenada oo iska difaacay eedda xafiiska xeer ilaalinta uu soo bandhigay ayaa codsaday in xuriyadiisa la siiyo muwakkilkooda maxkamadda sharafta leh maanta waxaan rabnaa cadaalad hortaaganahay waxaa la keenay markhaatiyaal oo afar ah oo ah askartii meesha ka shaqeeyay muwakkilkayga oo maxkamadda horteeda ka sheegay inuu meesha wax ka dhaceen dagaalna dhacay ninka dhintin oo ku dhintay nin lagu magacaabo Ayaanle iyo Cabdi Xayir Axmed xabada ay isweedarsadeen inuu ku dhintay oo muwakkilkayga uu sheegay maxkamadda waxyaalaha meesha ka dhacay si dhabta ah oo xaqiiq ah oo sidii falkaas u dhaca cadeyn lahaydani xafiiska xeer ilaalinta iyo hay'adihii baarista ma keenin waxa kala la keenin xabadihii meesha ka dhacay fooqii waxa la yiri bacaad ay ahayd bacaad fooq bacaad ma qariyo markhaatiyaalka maanta meesha la keenane lama xiran lama waraysanin wax eed ah oo loo soo jeediyay male goobtan way joogeen barkoodan waxay cadeeyeen qaar ayaga kamid ah inuu meesha fal ka dhacay falkan ka hor fal in iska dhacane maxdarka haddar ay ka sheegeen maxkamadda sharafta leh markhaatiyaalka maanta la keenay laguma kalsoonaa karo cadaaladooda mana qabato muwakkilkayga iyo xafiiska xeer ilaalinta oo eeda soqore oo ah aayadda 178 iyo aayadda 45 ee suuratul maa'ida waxay cadeynayaan aayad qaasatan wal aayadda 45 suuratul maa'ida naf dishay in la dilo dadka maanta meesha joogane ma loo qaada karo aayaddaas sababtoo ah waa askartii goobta joogtay falka muwakkilkaygana oo lagu eedeynayo qayb ka ahay way eedeysanaha maxkamadda horjooga xasan si waafaqsan qodobka 119 waxa soo gabagabeynayna doorkeena waxa waafaqsanaha marka hore difaaci uu soo jeediyay saaxiibkay Cabdulqaadir intaas kadib wixii meesha ka dhacay iyo galdacwadeedkii iyo sidii xafiiska xeeraalinta wixii uu soo jeediyay iyo eedii uu ku soo jeediyay muwakkilkeena iyo marqaatiyadii uu keenay dhamaantood markii aan dhageysanay kadib iyo waxyaabihii noo soo baxay iyo sida muuqato markii la isku soo daro xafiiska xeeraalinta wax cadeynayo in muwakkilkeena Xasan uu yahay dambiilihii geystay dambigan oo cadeyn rasmi ah dambiga lagu heystana dambi dil ah uu yahay qiraalna uu sajirin oo asigii inuu geesto dambiga ma ah waxa maxkamadda ku codsanaynaa haddii aan nahay muwakkiliinta Xasan in
muwakilkeena xuquuqdiisii inay u xukunto oo laga celiyey ama laga joojiyey 2 inay xorriyadiisa u celiso intaas ku soo gabagabeynaa maasada maxkamadda garsoore gaashaanla dhexe maxamed cabdi muumin ayaana ugu dambeyn fadhigan soo xiray cabdi fataax khiyaar warbaahinta qaranka muqdisho